waayahay maanta bismillahi raxmaan raxiim maanta barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay arrimaha Soomaaliya iyo isbedelkii weynaa shalay dhacay iyo wixii ka dambeeyay waxyaabo fara badan ayaa soo ifbaxay dabcan marka hore waxaan rabaa inaan ku bilaabo markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya ciidamo saraakiil Turkish ah iyo ciidamo Soomaali oo Turkish u soo tababaray iyo gawaarida Turkiga iyo droneska Turkiga iyo waxa iska hor yimid Ethiopian labadii markay iska hor imaadeen Ethiopiana dib u booday arrinkaas dib u boodid Ethiopianka ayaa waxay sababtay in kuwa kale ayagana isku sheego madaxweyne maamul goboleedyada qaar ay argagaxaan oo ay ogaadaan in Ethiopia aan lagu kalsoonaan karin maxaa soo kordhay marka si fiican ayaan u dulmar doonaa hadduu ilaahay idmo laakiin waxaan rabaa inaan ku bilaabo saakadan waxaa la ii xaqiijiyey mashruucyo ballaaran oo u fiican ama wanaagsan dadka reer Bay iyo Bakool ama gaar ahaan guud ahaanba koonfur galbeed Soomaaliya haba u badnaato aaga Baydhabo mashruucyo jaamacado la doonayo in laga furo dhulkaas maadaama hadda ninkii dhulka ku fadhiyay Cabdicasiis Laftagraan meesha laga saaray oo la yiri hadda koor waxa la ii xaqiijiyay saaka in hadda koor loo soo bandhigay mashruucyadan in laga fuliyo oo uu asaga diiday wuxuu diiday anima garanayo iyo sidoo kale xaruntii labaad wax loo yaqaan command and control ciidamada task force-ga ah waxa jiro hadaan la soconin sanadkan hadda ku jirno bishii hadda soo dhaafnay ee January sanadkan hadda ku jirno Soomaaliya iyo Turkiga ciidamadooda saraakiisha ayaa isku dhaf sameeyay way isku milmeen oo waxay noqdeen hal guuto waxaana loo yaqaanaa Somali Turkish Task Force sida ogtihiin xarunteeda ugu weyneed command and control-ka meel ka mid ah shabeellada dhexe ay noqotay Baydhabo dhul u dhow ama meel ka baxsan waxa la ii xaqiijinayaa in sidoo kale ay noqon doonto meel command and control macnaheedu waxa waaye droneskiya joogo mid ka mid diyaarada F16ka garoon ciidan iyo waxba la sameynaya marka that's good news war farxad la waaye marka waxa leeyahay taasna waxa leeyahay kulli hambalyo wixii hore way dhantaa 100% waaye waxaa jiro sida maqasheen maanta xan fara badan waxa laga yaabaa inaa maqashay Cabdiraxmaan Ciro in uu Ethiopia joogo waqti xaadirkan Saciid Dani asagana xagga uu ku sii socdo ayadana waa maqasheen sidoo kale Axmed Madoobe asagana inuu qorsheenayo in uu Addis Ababa tago kadibna Nairobi marka howlo fara badan ayaa dabcan soo socdo maxaa dhaqdhaqaaqan iyo argagaxan horta maxaa keenay waa isku dinaysaa moogta waxaa keenay gawaaradan elfay gawaaradan Baydhabo shalay ku dhex aragteen laakiin intiina badan ma taqaanaan howlaha loo adeegsado iyo waxa ay yihiin gawaaridan waxa loo yaqaanaa kirbi hadda ka hor hadda muddo laga joogo sanad Ukraine dalka Ukraine oo hadda dagaal uu ku socdo ayaa wuxuu soo iibsaday 10 gaari oo noocan kuwan qafilan ee militariga ah ciidamada ku dhex jiro machine guns ku rakiban miinana ma karto daas weydiinaysid gaariga kirbi muxuu yahay daas leedahay miina ma karto ugu yaraan 10 askari ah gudaha ku jirto oo qalabaysan oo hubkooda irsaastooda waxooda wato bambana ma karto xitaa bazooka ku soo turtay uu sii socdaalay Ukraine ayadoo 10 xabba haysato ayay dhul hadda koor Ruushka uu ka qabsaday ayay ka xoreysatay dhul la eg Baydhabo ilaa Muqdisho 250 kilomitir kor u sii dhaafayo ayay dib uga qabsatay cidda loo yaqaano Ruushka sababtoo ah xitaa gantaaladii droneska laga soo tuuray gawaarida wax weey ka qaadi waayeen marka gawaarida ciyaar ma meesha ay galaan waa galin shalay marka intiina badan waxa aragteen ciyaal wiilal dhalinyaro oo Soomaali oo hubeysan oo digli marifla oo ka laalaada gawaaridii iyo farxadii wixii aragteen laakiin gawaaridaas waa dhoolatus buuxa waay sidoo kale sida ogtiin Baydhabo inta uusan Cabdicasiis Laftagraan ka bixin habeenkii oo dhan waxa dul heehaadayay diyaaradda droonka Akinji oo Soomaaliya u bixisay Queen Monokto Ethiopianka wuu haystaa droneskaas balse waxa isweydiinaysaa yuu ka soo gatay wuxuu ka soo gatay Turkiga hub iyo rasaas iyo macalla drones uu siiyay Ethiopianka ayuu Ethiopianka isticmaalaa markii Ethiopianka xaqiiqatan markii ay imaato military waji ah waliba asagoo hadda culayso fara badan ay ku furiyeen Ethiopianka dhulkii Tigray ahaa laga qabsaday cid Eritrea ahayd oo aad uga yar tira ahaan iyo ciidan ahaan iyo tay ahaan kuliba ay habeen iyo maalin dhulka Ethiopianka soo gasho fooda ka wada dhul qabsi ee ka wada Abiy Ahmed waxba ka qaban la'ah marka waa nin iska booteeyo
laakiin wax tabara aan lahayn kuwa doqomo ah oo Soomaali ah oo madax isku sheeg ah horta Ethiopiankii dabada ka galay oo u maleeyay mid fiican waxaysan taariikh aniga xamar joogay waagi muqaawamada Ethiopianka magaalada Tangida ay soo galeen haddana ay ka carreen Tangida waaya taas waa taas inta soo elfandina u maleynaya waxay ahayd dowlatus toos ah Ethiopiankii iyadoo fasax laga qaadan la dul yimid saako arkaysan Ethiopiankii salaan u saarayo shaqada madoowi iyo Sharif Sakini oo magaalada soo galay waa arkaysan waaya qorshe socdo qorshe sheekada baydhabo waa bilow hadda ka hor Turkiga saa u fahantaan Libya nin la dhihi jiray nin la dhaho Khalifa Haftar oo generaal ah oo halis ah waxaan hadda joogo Soomaaliya oo dhan kulli military ma ah siciidiniga lagu sheegay hebelo ciraha iyo guud laawo iyo lafta garaan iyo kulli hal nin oo military khibrad kale ma jiro waa eber hal habeen hal saac lagu soo qaban karaa hadii ciidamada Soomaali barashuut u tababaran helicopter inta dul keentid xarunta dhan ee madaxtooyada dini ku soo daadanaya afar qof soo qaban karo la bixi karaa jirto maduuro ciyaaro u maleysaan dhalinyaradaas way joogtaa beedhabe maanta dhex joogan muqdishona way joogan shabeellooyinkana way joogan dhalinyaro Soomaaliyeed qabiil aan ahayn qarameysan oo loo tababaray inay la soo baxaan tug ciday rabaan fasaxa la siinin ma ogiye way awoodaan taasna miiska saaran tahay just wanna let you know dib noogu soo celi Khalifa Haftar Libya ninka odayga Khalifa Haftar oo Libya wada qabsan rabo Qadaafi markuu dhintay kadib ciidamo halis ah oo beeshiisa u badan beel wuxuu ka dhashay Khalifa Haftar hadaa yaaban tahay Furjaan la dhaho beel Furjaan loo ka dhashay beeshaas asagoo wato oo Libya tuula xaafad soo qabsaday iska soo socdo Tripoli dalaq soo dhahay ayaa gawaaridan Turkiga uu sameeyay ee kirbiga shalay beedhawa ku aragteen laga horgeey Turkiga soo degay ciidamo yar oo Libyana la socday oo beela kala ah beesha ninkan ahayn iyo saraakiil military u tababaran la wareegida meelaha iyo sirdoonka waxa soo tababaran sida kuwa shalay beedhawa ku aragteen oo kale meel alaali meesha maanta ciidamada isku dhafka Turkiga iyo Soomaalida ay joogan ku aragteen oo kale ninka Khalifa Haftar ahaa aguhu wax ka day gawaaridana bursatay iyo Akinji diyaarada Akinjiga oo hadda Muqdisho xitaa F16 looma kicinayaa aniga Muqdisho hadda F16 ay joogto Akinji iyo waxa lagu bursaday gawaaridan kirbiga lagu bursaday cararka uu cararay 80% dalku iskaga baxay hadda meel kale meel xagga ah oo dur iska jooga waa looga haray wuuna aqbalay dawladda UN ee aqoonsantay ee hadda Libya ka taliso farahuna ka qaadama soo weerar wafan Soomaa laakiin Turkiga aqli isticmaalay iyo dawladda Libya hadda ee Turkiga uu taageeray ee Haftar bursaday Haftar waxa lagu shaabadeeyay argagixis qawaarij ama tahayba Xasan Sheekh iyo kooxda hadda shalay beedhawa ku arkayseen oo Cabdiqaadir Maxamed Nuur madaxa furunta ama qashan asxaabtaas oo dhan intay wada fariisteen kuwan Axmed Madoobe ha dhihin Saciid Dani ha dhihin iyo wax cid alaali cid dawladda ka soo horjeedo waxa lagu shaabadeeyay argagixisatiin waatan saxaafada Turkiga oo Cabdicasiis lafta garaan ku shaabadeysay argagixiso dhulka shalay ciidamada Turkiga ay qabsadeen ama gawaarida Turkiga lagu qabsaday ciidamada Soomaalida ee qalabeysan ee Turkiga uu tababaray ay qabsadeen waxa joogay leeyihiin intaas sano waxa joogay argagixis Cabdicasiis lafta garaan argagixis laga dhigay sheekadaas marka socota aad ay xiiso u leedahay baydhabo is the beginning